أفريقيا هرداي أذو كفري هرداي هدي يدعدي هرداي هتبعون أي هرداي هي أفريقيا هرداي أذو كفري هرداي هدي يدعدي هرداي هتبعون أي هرداي عمل السرع هرداي هين سديسة dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaa kaalin ku filan ka qaatay xukunka kale talisnimada ee ka jiray caalamka hase ahaatee sanadihii dambe waxay muuqatay in arintaasi ay wax badan iska bedelayeen waxa hadda loogu yeero kacdoonka Afrika ayaa horseeday in dadka ku nool qaaradda ay si tartiib ah uga soo baraarugaan sidii looga takhalusi lahaa xukunka kale taliska ah waxay arintan markii u horeysay bilaabatay bishii Janaayo ee sanadkii 2012 markii kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee Senegal Abdoulaye Wade kadib markii uu 12 sano awoodda haystay Wade oo hadda 93 sano jir ah ayaa madaxweyne ahaa tan iyo sanadkii 2000 Paure oo isagoo xilka hayay 27 sano maamulkiisii la soo afjaray sanadkii 2014 xilligaas oo mudaharaadyo rabshado wata gilgileen guud ahaan wadanka xogaa kadib hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa Afrika oo muran badan u hareeyay Robert Mugabe ayaa xukunkiisa la soo afjaray 21 bishii November ee sanadkii 2017 Mugabe waxa talada wadanka Zimbabwe kala wareegay hogaanka militariga xilli aad u dhaw oo ahaa 2 bishan Abriil 2019 ayuu iscasilay madaxweynihii xanuunsana ee dalka Algeria Abdulaziz Bouteflika waxa salfaday mudaharaadyo nabadeed oo guud ahaan dalkaasi ka socday muddo 6 isbuuc ah waxaana waday dad dhalinyaro ah oo dalbanayay in la soo afjaro xukunkiisa jirsaday 20 sano kadib maanta oo khamiis ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 11 bishii Abriil 2019 waxa xilka laga xiyuubiyay madaxweynihii xukunka dheeraa ee dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir kadib markii uu heerkii ugu xumaa gaareen mudaharaadyo ee shacabka uga soo horjeedeen maamulkiisa wasiirka gaashaandhigga Suudaan ahna madaxweyne ku-xigeenka Cawad ibn Awf ayaa ku dhawaaqay in al-Bashir xukunka laga wareejiyay una ku jira xabsi guri xilka qaadista Bashir ayaa tirada hogaamiyayaasha Afrika ee sida qasabka ah kursiga looga dajiyay ka dhigaysa madaxweynihii shanaad waa kuwan madaxweynayaasha soo haray haddii arintan ay sii socoto laga yaabo in wadnaha ay farta ku hayaan madaxweynaha Cameroon Paul Biya oo 86 sano jir ah waxaa loo aqoonsan yahay hogaamiyaha Afrikaanka ah ee ugu muddada dheeraa isagoo xilka madaxtinimada Cameroon hayay tan iyo 6 bishii November ee sanadkii 1982 wuxuu awood yeeshay intii uu jiray maamulkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Ahmadou Ahidjo xilligaasi oo uu ahaa xogayaha guud ee madaxtooyada laga soo bilaabo 1968 ilaa 1975 kadib wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha Cameroon intii u dhaxaysay sanadkii 1975 ilaa 1982 wuxuu xilka kala wareegay Ahidjo kadib markii uu iscasilaad lama filaan ah qoray sanadkii 1982 madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mpassogho Obiang wuxuu afgambi military ku riday adeerkiis Francisco Macias Nguema bishii Agoosto sanadkii 1979 tan iyo xilligaasna wuxuu xukumayay dalka Equatorial Guinea xukunkiisii waxaa markii hore loo tixgeliyay inuu dhanka bani'aadanimada ku dhaamo xukunka adeerkiis balse markii dambe waxaa soo kordhayay dhaleecooyin loo jeedinayay inuu arxan daran yahay madaxweynaha Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso madaxweyne Nguesso wuxuu xafiiska ku sugnaa muddo 34 sano ah isagoo markii u horeysay xilka hayay inta u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 1992 ka hor inta uusan xilka ku noqon sanadkii 1997 kadib markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye waxa markii dambe dib loo doortay bishii Maarso sanadkii 2016 madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu ka qayb qaatay kacdoonkii fallaagada ee xukunka looga tuuray hogaamiyayaashii hore ee Uganda Idi Amin Dada oo xukunka hayay intii u dhaxaysay 1971 ilaa 1979 iyo Milton Obote oo xilka hayay inta u dhaxaysay 1980 ilaa 1985 wuxuu Museveni xilka la wareegay sanadkii 1986 maamulkiisii wuxuu sanadihii la soo dhaafay culays badan kala kulmayay fanaanka siyaasiga isku bedelay ee lagu magacaabo Bobi Wine
kaasoo sheegay inuu Museveni loolan kula gali doono doorashada madaxtinimada ee sanadka 2021. Madaxweynaha Chad Idris Deby madaxweyne Deby wuxuu xukunka la wareegay sanadkii 1990kii. wuxuu xafiiska madaxtooyada joogay ilaa maanta isagoo markii shanaad si uu muran ku jiro ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday bishii Abriil ee sanadkii 2016. Deby wuxuu xilka madaxweynaha hayaa ku dhawaad 29 sano oo xiriir ah. madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki waa madaxweynihii u horeeyay uu yeeshay dalka Eritrea. kursigaasna wuxuu ku fadhiyay tan iyo markii uu wadankaasi xornimada qaatay sanadkii 1993 ilaa maanta wuxuu talada hayaa muddo 26 sano ah. madaxweyne Afwerki wuxuu sanadkii la soo dhaafay heshiis la galay Ethiopia oo muddo dheer ee colaad kala dhaxaysay. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro. haddii aad horey u saartayna waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. mahadsanid.